iyo marti sharafta ka soo qayb gashay fadhigan bismillahir rahmaanir rahiim shirgudoonka mudanayaasha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku salaamayaa salaanta ugu qiimo badan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan halkan ugu mahadnaqayaa mudanayaasha golaha soo xaadiray iyo sidoo kale kuwa maanta aanay waqtigan u saamixin inay nala joogaan golaha sidoo kale waxaan mahad gaar ah u soo jeedinayaa shirgudoonka golaha iyo xogayaha guud oo fadhigan qabaqaabadiisa iyo isu yeedhistiisa lahaa mudanayaal anigoo idinka mahad celinaya waqtigii dheeraa aynu soo wada shaqaynay iyo waayihii dheeraa ee aynu soo wada maray mudanayaal waxaan maanta goloweynaha sharafta badan isugu yeedhay inaan idinla wadaago go'aan muhiim u ah taariikhda golahan iyo taariikhda jamhuuriyadda Soomaaliland kaasoo ah inaan isu diyaarinayo inaan baneeyo xilka gudoomiyaha golaha wakiilada ee aad ii doorateen idinku iguna maamuusteen kaasoo waqti dheerna aan idinku matelayay isla markaana codkiina iyo kalsoonidiina aad igu siiseen inaan idinku hogaamiyo muddadaas mudanayaal waxaynu ahayn hal gole oo ka kooban 28 xildhibaan oo uliya diirkeeda 12 sano ee golaha aynu ka soo wada shaqaynaynay waxay naga geeriyooday 12 xildhibaan oo saaxiibadeen ahaa oo kala ahaa marxuum maxamed nuur cismaan aare marxuum maxamed cumar jabaabul marxuum yuusuf محمد علي توكي مرحوم أحمد عبد السعيد مرحوم آدم تربي أوغلي مرحوم أحمد حمود محمد مرحوم أحمد إبراهيم ظاهر أحمد وينه مرحوم فؤاد شيخ محمود عبد الله مرحوم حرير سعيد بلاله مرحوم محمد برخد ميجنه مرحوم إبراهيم محمود حسين دارديره مرحوم حمسين محمد قادويني مضنيال وحسين حريص الذي كعد سنيا إن ولا الذي فاتح هذا ومرتان آمين إلهي قبرك هو نوري نحريصي جنة الله كورابي إهلدي يقرأ ودي كتجين ينام بالشعب قنا صبر يمنا كسر إبى يا بلان قاضي إن نفكستا لدمين دون تجيري وهكذا دعينا يا قدومي ياشي يمضنا ياشي جيريودي يقول ياشي نجوه الرئي كتر سنة مضنا يا سيدو كلنا خلي بانا ذا أنت حنوسنا يسمى أنت يا فردين وهرين نصيبنا كسوق يبقى وحن الله يقبريه عافيمات لحظة إنه سيئو أنا قلت سيجارة خصية أضيق الجلها اللي بان إبراهيم أحمد هيري إبراهيم كعان تاريخ الجلها يهور مركز مضنيال أنت أنا نوجد بين قوان كتاريخ جاه يعني هل كان أول فردين ما أنت وهنشعل هاي إن هل كان يكسوق البيو taariikhdii golahan soo maray wax qabadkii iyo horumarkii golahan sameeyay caqabadihii naga hor yimid muddadaas iyo wixii aynu ka baranay marxaladaha kala duwan mudanayaal sidaad la soo socotaan golahan wuxuu ahaa golihii 29 September 2005 la soo doortay waxaynu la wareegnay waan jecelahay inaan xasuusiyo duruufihii aynu ku soo shaqaynay si aynu u garanno wixii noo qabsoomay iyo caqabadii golahan inaga hor yimid golihii inaga horreeyay waxaan ka dhaxalnay oo aan kala wareegnay hal howl oo shirar ahaa oo ahaa mid kooban dhisma ahaana aan loogu talagelin inuu noqdo gole baarlamaan
wuxuu ka koobnaa 5 xafiis oo kaliya shirgudoonku hal xafiis buu wadaagi jiray shaqaalaha golaha aan xilliga golaha ugu nimi waxa koob iyo 20 iyo laba agaasimo waaxeed qalabka xafiisyada gabi ahaanba ma jirin marka laga tago laba kombiyuutar iyo hal teeb 6 guddi hoosaad oo aqalka golaha aan ugu nimi may lahayn xafiis xoghayn iyo agab shaqo midna waxaan golaha kula wareegnay koob iyo 30 xeer oo ay sameeyeen golayaashii inaga horreeyay miisaaniyadda goluhu waxay ahayd 3 bilyan oo shilin Soomaaliland mudanayaal maanta ilaahay mahadi goluhu waa mid aad uga duwan isla markaana waxa lagu farxaa inay noo qabsoomay muddada aynu ka wada shaqaynay waxa kamid ahaa dhisme xarun baarlamaan oo casri ah oo la jaan qaadaysa baarlamaanada dunida kana kooban xafiisyo aad u tiro badan hoolal shirar iyo maktabad oo ugu dambeysay waxa kamid ah hoolkan aynu maanta fadhino waxaynu xafiisyo baarlamaan ka sameynay 5 gobol oo kamid ah gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kala awda Saaxil Togdheer Sool iyo Sanaag si shacbigu soo doortay xildhibaanada iyo goluhu isu gaadhaan shacbiguna u helaan xarumo ay ka helaan xeerarka goluhu ansixiyay tirada shaqaalaha goluhu maanta waa 153 waxay kordheen 7 jeer miisaaniyadda goluhu maanta waa 27 bilyan waxaanay kordhay 7 jeer tirada agaasimayaasha goluhu waa 10 halkii ka ahaayeen 2 guddi hoosaadyadu halkii ka ahaayeen 6 waa 10 waxaa sidoo kale horumar weyn laga sameeyay habka goluhu u maro samaynta shuruucda cusub ee dalka kaabista iyo wax ka bedelkooda waxa kordhay ka qaybgalka dadweynaha ka qayb galaan iyo dhageysiga shuruucda goluhu ka doodayo iyo samayntooda waxa golaha u qalsoomay inuu tababaro badan u sameeyo xildhibaanada iyo shaqaalaha golaha wakiilada maanta shaqaalaha goluhu waxa leeyahay waa kuwa ugu tayo fiican hay'adaha dawladda waxa xusid mudan inaynu xiriir badan oo dibadda la sameynay baarlamaanada dunida ka kooban waxaana xusi karaa inaynu goobjooga ka noqonay Commonwealth Parliamentary Association waxa golahani soo maray wuxuu soo saaray wargeys 3 bilood ah iyo website kaliya sida la sheegay hay'adaha dawladda ee shaqeeya ee la abneed karayo waxa ilaahay mahadiya inay noo suurto gashay inaynu konton iyo 2 xeer oo dhaqangal ah u sameeyno dalka kaasoo u dhigma 62 dhammaan xeerarkii laga sameeyay Jamhuuriyadda Soomaaliland halka dadka qaar ku tilmaamaan golo fadhida waxaan ilaahay mahadi inoo suurto galay inaynu 52 ka xeer oo dhaqangal ah u sameeynay waxa kale oo inoo qabsoomay in golahani muddadaas uu soo saaray 360 go'aan gole oo dalka dan u ahaa ama parliamentary resolutions caqabadihii iyo duruufihii golaha soo wajahay waxaynu ku soo shaqaynay duruufo iyo caqabado badan mararka qaarkood aad u qalafsan oo saameyn ku lahayd isbeddelka siyaasadeed ee dalku soo maray sida dib u dhigid doorashooyinka ee xukuumadii kala dambeeyay ee udub iyo kulmiye isbeddelkii labada xukuumadood ee kulmiye iyo udub furitaanka ururada iyo doorashadii golaha deegaanka haritaankii u haray xisbigii xukuumadda ee udub oo maanta 330 xildhibaan oo ka tirsanaa xisbigaas ay maanta golaha inala joogaan mudanayaal golahani intii uu shaqaynayay caqabadihii aynu soo marnay kuwooda ugu mudnaa ama ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa in xukuumadii kala dambeeyay Soomaaliland ay ogolaan waayeen in golaha wakiiladu si madax bannaan u shaqeeyo oo ay gaadhay mararka qaarkood in golaha la xiro mararka qaarkoodna golaha ciidan lagu wareejiyo oo la duldhigo
وحاولنا بنوفمبر 2014 مرة قار كل واحد عضي إن أربعة ساعات سببان إن مواطنين أي كل يريدون والله كلا إسفهم كبرشة يا الشقة قالها وكيل هذا هو أدل ليدتي واحد كده ريسا إذا أنت عن كفر سجلهين يقولها لو سوتشي ديو هذه يقول سيدا ملاحظة المسؤولين تسرسرة الطلقة واحد سالين كفلان إن مشرحة صاحب كيا الرجية دوبيها كلمية شرح مدحوينها كلمية وكتشي هذا لو كنت رأيه قالها مضشي دافرك كان هذا الشدة قبل كتقدر سوى كنت المعمي قال فرديدا ونكو إيدي قالها حاول حكومة لهاي وقالوا الحقيقة بنواي سعر بركة أرنت أصلا وحالي الحقيقة وشيء حكومة وهيدنا عقبات وين إنه واحد مرك مدة دير سوتشري إسامة غيب سجا كراسيدا قالها وكيل لها أرنت أساسا كورقبتان ومدحوينها جمهورية سوماليلاند شيء إنه بدو صار دون هسه شيء تانو هاي كنت دي لا مانتا لما صار الحكومة سوتشي ديننا إن أرنت الله بحصده لو ردي خدو إن أرنت الله سماجو سديو بدي خدي مدحوينها كوري ودان الظاهر يا رجال وحصدوا كلينا عقبت وين كواهي كما غناشيها هوينك يبيرها الله يبصره ومضا إن يسيب ذكرى قرنكني وهو حل أرنتاس وحيدنا عقبت كل وين إلا هذا فلله أنت حكومتي كلا دبي حرارك قلوب أصحيه ومررك قار كودا يدعي إن المحكمة تقولين حرارك أي ماسك مضا نيال وحيدنا عقبت وين حيد وحيدنا عقبت وين أحيد إلى أنت حسانة مدنياش برلمانك ومرر بعضنا دعضي إن عيدك وأمانك اللي بعنا كقاضو حسانة دي إلى هايين أما الله قراءه أما الله حلو مدنيا يدمان يدو أشيران عقبات هذا أنا صور شيء يقار كله وكوجد من عين قلها هذا نوح ما أنت إلهي مهدية إن النولي نهاي قال اسكت طوبا ووضع الشقين إياه سيب وحدنا ووضع الشقين إياه قلت مراد يا ودوديسة يدفاعي سبا حبسمي وجوده إسلام كان الشعب كغيب الكودة أي ليهين تاسو أرين لغو بتشيرتو دمان قبل كان يكون نور نهاي هي منطقة يكون نور نهاي يدل كان يشارك نهاي مدنا يا وحين بدن كودة دالك oo ay suurta galay ilaahayna igu asturay isku wadista golahan iyo ilaalinta maslaxadda guud ee qaranka anigoo ka duulayay dhowrista sharciga ilaalinta karaamada iyo sharafta mudanayaasha golaha iyo matalaadda shacbiga ee soo doortay mudanayaal go'aanadii iyo gabagabadii hadalkayga maanta oo ay taariikhdu tahay 2 bishii 8 sanadka 2017 waxaan ku qancay isla markaana go'aansaday inaan baneeyo xilkii gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan idinka rajaynayaa inaad igu taageeri doontaan arrintaas تفضل يلا ميكروفون يلا ظاهر أنا جو أميسن إن بدل كيجا بوحين يكارين تاسي وإذا كسب بحضانه يد الله مريو طريقة يهناك الشرعية لو دورته بدوبيها قلاياش قلا وكيل هذا
iyo xubnaha kale ee shirguddoonka mudanayaal inaan ka degay xilka iyo mas'uuliyadda guddoomiyaha golaha wakiilada macnaheedu maaha inaan ka tegay shaqadii qaranka ee waxaan isu diyaarinayaa inaan qabto kaalin ka mug weyn oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu tartami doono 31 November 2017 haddii ay baydo mudanayaal haddii ay baydmo markii aan ku guulaysto himiladayda hoggaaminta dalkan waxaan idiin ballan qaadayaa in golayaasha sharci dejintu si dhammaystiran u helaan madax bannaani buuxda lana ilaaliyo xasaanadda iyo sharafta ay mudan yihiin golayaasha qaran waxay xukuumaddaydu xoog saari doontaa xaqiijinta madax bannaanida dalka iyo helitaanka ictiraaf buuxa oo qarankeenu u helo beesha caalamka dhisidda cadaalad iyo garsoor madax bannaan maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa xallinta sicir bararka aafeeyey ummadda reer Somaliland kobcinta dhaqaalaha iyo kor u qaadista adeegyada bulshada daryeelka shaqaalaha iyo ciidanka oo abuurista dhalinyarada fursado shaqo oo loo siman yahay la dagaalanka qabyaaladda iyo qoqobka aafeeyey qarannimada ugu dambeyntii waxaan dadaal badan u geli doonaa midaynta bulshada reer Somaliland waxaan ku soo koobayaa aragtida iyo himilada aan qabo tuduciyo ka mid ah maansadii dabataxan ee macallinkii mufakkirkii iyo mansayahankii weynaa maxamed xaashi dhamac gaariye tiriyey waxaa maanta ii daran qaran haga dadweynaha qaran damal sidiisii loo dalaalimaysto soo taabta darafyada qaran aan dirsooc jirin qaran aan lahayn dulin nabadoonka beeshiyo raacatada dulsaar ku ah qaran aan dirsado oo aan isku kaydirin qaran iigu soo dara oo aan iiga sii darin qaran gudaha daafaca dibaddana aqoonsi leh mudanayaal waxaan idinkula dardaarmayaa inaad si xafidaan inaad issaamaxdaan oo aad iscafidaan isu dulqaadataan inta muddada xilka idinka harsan ee aad ka shaqaynaysaan oo aad ku shaqaysaan isku duubni wadajir iyo walaaltinimo Somaliland ha noolaato ha samaato ha sugnaato والسلام عليكم وبالله التوفيق هل دقيقة ويسيسي دعيننا هل دقيقة إيه سافر dia كلا طبعا خلينا نشوف هذا درسك تايب درسك تايب مدن عيال سافر dia
imsa jooga imsa jooga asmaqalo golaha fadhiya 170 mudane golaha fadhiya 170 mudane mudanayaasha igu taageeray inaan ka dego xilka oo baneeyo jagada gudoomiyaha golaha wakiilada gacanta taageen وعن تضباط المدنة أيها وقرامي قدومير معضينين سيدا سوكو أنصحي وعن دي أغيسين هلو غيسيس دور الشضا